kulankii golaha wasiirada ee maanta waxa ka soo baxay go'aamo dhaxalgal ah oo looga gol leeyahay in wax looga qabto xaaladda amniga ee dalka ka jirta. kulanka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin goluhu waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. qodobka labaad waxa uu go'aamiyay goluhu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dabaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu uu garto in aan looga maarmin hawshan. qodobka saddexaad goluhu waxa uu go'aamiyay in barnaamijka la dagaalanka fikirka xag jirka ah ee rabshadaha wata loo bedelo hay'adda qaran ee la dagaalanka fikirka xag jirka ee rabshadaha wata. afar waxa uu go'aamiyay goluhu qabashada shir qaran oo looga arinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. qodobka afraad goluhu waxa uu go'aamiyay in la qabto shirweyne qaran oo looga arinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. qodobka shanaad waxa uu go'aamiyay in la hirgeliyo lana fuliyo sharciga ka hortagga iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada lana bartilmaameedsado oo la burburiyo shabakadaha ururada argagixisada ugu xil saaran maaliyadda isla markaana la sameeyo liiska xayiraadaha iyo cunaqabataynta lana dhaqangeliyo. qodobka lixaad goluhu waxa uu go'aamiyey ansixinta istaraatiijiyadda guusha ee dabargoynta argagixisada oo maanta lasoo bandhigay si loo mideeyo xuduudda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba, dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo waliba saaxiibada Soomaaliya. qodobka ugu dambeeya ee toddobaad waxa goluhu uu go'aamiyey in wasaaradaha soo socda si degdeg ah ay u gutaan waajibaad kaga aadan dagaalka lagu xoreynayo wadanka. waxaana ay kala yihiin wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda korontada iyo biyaha, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada.